United we are one nation, we stand together, we are family. United we are bound together, we are one community. United repping our being to the end, that's the way we like to. Wallahi, trust my family's lip and you should know. The 7th century was a time the final messenger started this ummah. But first we give thanks to him, to all for blessing us with this ummah. We've been here since they don't know lie. Ummah. Billion people cross, still growing. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Nuur Channel. Magacayga waa Sucdi Nuur, waxaan ka mid ahay channelkan dadka iska leh oo insha Allah aad ku baran doontaan fiidiyoyaasha kale oo soo socda. Maanta insha Allah waxaan rabaa in aan ka hadlo 1 Luulyo 1 July oo Somali Independence Day. waxaan rabaa inaan ka hadlo 2 qodob insha Allah. Midda koowaad oo xurriyadda. Soomaaliya waxaa xureysay 13 wiil oo dhalinyaro maasha Allah, alxamdulillah. Xurriyadda markaan qaadanay ba kadib ilaa hadeer xur ma nahay, because maalintii aan dhalanay ilaa hadeer dagaal aa lagu jiraa, qabiil dagaalkiisa lagu jiraa. waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxa ay xurriyad tahay. xurriyad hadii ama independence Soomaali u fasiro, waxaa waaye inaad isku filan tahay oo waxaad sameynaysid aadan ka koobi gareynin dadka kale ama soo saar leedahay. haddaan fiirino labadaas macno oo xurriyad ay leedahay, hadda Soomaaliya wax aan anaga soo saaranay oo magaceena ku qoran yahay ma haysana. taas koow waaye, because markaad wax soo saaratid oo waad isku filan tahay. xurriyad koow taas macnaheeda waaye. soo saar ma leenahay, waa maya. midda labaad waxaa waaye anaga wax oo anaga noo gaar oo saas Soomaalida sameyso la dhaho ma leenahay. taas waa labo. markii oo labadaas loo fiiriyo, xurriyad kaamil ma haysano, because wadankeena anagoo maasha Allah hadeer Soomaalida everything way gaareen, wax kasta way barteen. dhakhtar ha dhihin, engineer ha dhihin, everything. hadda Soomaalida wax kasta way ka saayaan. wadankeena intaan ku noqono wax ma u geenay, dad qaarkooda u geeyay. hadii oo Soomaaliya la aadana at the same time dadki waxay u aadayaan inay oo madax noqdaan. one only thing oo la rabo inay oo barano waxaa waaye dadka dhan madax ma wada noqon karaan. hal qof waa inuu madax noqdo oo dadka kale way adagtahay inaa oo noqotid follower oo wax fiican qabanayo dan qof oo madax because haduu everyone oo madax uu noqdo, yaa oo maxaa la dhihi jiray wixii qabanayo, yaa guryihii qashinkiya jidka ka guraayo, yaa dhakhtar noqonayo. marka waxaan u baahanahay waxaasoo dhan inay markaan wadamadan kale joogno waxaas dhan waan qabanaa. qashinka warehouse yaal inay laga shaqeeyo, inay oo wax la soo saaro. inta markii la joogo wax waa la soo saaraa, anagiyaa ka shaqeynoon, Soomaalideena ka shaqeynoon wax soo saarki. maxaa noo diiday Soomaali inta aadno inaan wax soo saarano? koow. midda labaad waxaa waaye waxaan qabiilkan insha Allah mar kale baan ka hadlayaa, laakiin intaan oo isku fiirin leen oo dadkan saan waay
waxaa fiican Soomaali waa Soomaali kulligeen muslimiinaan ahay. And then the other thing waxaa waaye markii maalinta 1 Luulyo waa loo dabaaldegaa, si ugu dabaaldegnaa inaan oo free mixing sameyno, heeso la daaro. maxaa noo diiday inaa wax oo cusub soo saarno, wax cusub like for example hataa marka oo celebrationka oo 1 Luulyo sameynayno in aan oo adiga kasoo qaadba camal oo loo duceeyo wadankii oo maxaa la dhihi jiray lisku dayo, because wadan oo waxaa nahay oo kulligiis islaam yahay. heesahan la daarayo ay garid dadka oo maxaa la dhihi jiray calanka Soomaaliya heestiisa loo qaada laakiin si oo qeyr u noqdo wadankeena oo saan oo lisku cunayo, saan oo lisku dilayo u dhamaato in loo duceeyo. oo maxaa la dhihi jiray maalintaas qofkii awoodo hadaa rabtid wadankaaga hadaa jeceshahay genuinely hadaa u jeceshahay waxaa sameynaysaa maalintaas waa u soomeysaa, maalintii xurriyadda loo qaaday waa u soomeysaa, waa u duceynaysaa. because haddii oo diinteena la fiiriyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wax kaste oo maxaa la dhihi jiray maalin kasta oo maalin oo fiican ay tahay waa loo soomayay, waa loo duceynayay. so marka intaas haddii oo maalinta 1 Luulyo oo wax different loo sameyn lahaa oo wax soo saaridda, waxaan ka hadlay xurriyadda, waxaa waaye inaa wax your own soo saarinaysid. marka labadaas halkaas xurriyadda halkaas baan kaga tagaya. maxaan isbedel sameyn karnaa? taasna waa hadda wax already aan kasoo hadlay. waxaan isbedel ku sameyn karnaa celebrationkeena, si u bedeli karnaa instead of free mixingka iyo heesaha oo maalintii dhan oo la sameynayo wax different oo islamically oo sax oo oo maxaa la dhihi jiray wadankeenana ugu duceynayna. hadda marka waxaan bedeli karnaa marka oo celebrationka ka tagno, waxaan bedeli karnaa fikirkeena because hadeer waxaa waaye waxaan ka fikireynaa qof kastaba waxaa ku jirto hadduu oo Soomaaliya aad inta hadda wadanka qurbada la joogo waxaa laga yaabaa inay dadka dhan oo qabiil iyo waxaas wax u arkeen haddii meesha ku yarnahay laakiin Soomaaliya markii la aado qof kasta fikirkiisa waxaa waaye dadkeega see wax u tari karaa, waa qabiilkaaga see oo waa inaa ka fikirnaa Soomaaliya dhan wax u tari karnaa instead of qabiilkeega see wax u tari karaa, magaaladeeda see wax u tari karaa. inaa oo fikirkeena uu noqdo wadankeena Soomaaliya dhan see wax u tari karnaa oo maxaa u geen karaa oo meeshaan waxaad baranaysid waxaan ka bartay Soomaaliya see ugu anfici karaa oo Soomaaliya as magaalo oo wadankoo dhan oonan ahayn just meeshaada magaaladaada ama qabiilkaaga. taasna fikirkana waa inaa iska bedelnaa. waxa kale waxaa waaye rabo inaa ku zaa'idiyo waxaa waaye dharkeena, dhar xirashadeena. waxaa laga yaabaa inaa igu disagree gareysan tanba aniga ahaan I feel like wixii dhaqankeena ahaan dharkii aan xiran jirnay hadda inay oo laga tagaayo oo dadkii kale dhaqankooda dharkooda inaan xiranoono oo dhar oo xirasho oo Soomaalida oo lagu yaqaan inuusan ahayn dharka hadda xirano. marka saddexdaas aan isleeyahay aan bedeli karnaa fikirkeena celebrationka san u celebrate gareynayno si wax kasta kaga dhigno wuxuu Ilaahay ka raali yahay, because Ilaahay markuu naga raali noqdo oo Ilaahay waxuu ka farxaya aan sameyno markaas waa markuu wadankeena qeyr helaayo aan wax gaareyno. insha Allah intaas rabaa inaan kusoo koobo. waxaan ka hadlayna wuxuu ahaa midka ugu horeysa wuxuu ahaa
xurriyadda macnaheeda maxaa waaye, dadkii soo xoreeyay annaga maxaana laga rabaa inaan sameyno iyo iska beddelka insha allah. I hope waxaan oo aan soo duubay inaa ka faa'iidaan wax oo insha allah oo maskaxdiina ee ku fikirto sax waaye aniga maxaan sameyn karaa oo Soomaali u sameyn karaa, because qof kastaba wuxuu leeyahay fikrad oo qofka kale ku jirin, oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg haddii marka fikradaha laisku wada darsado waxaa la gaaraa. laakiin haddii qof kastaba isagoo iska fadhiya iska dhaho Soomaaliya waxaasi ku qaldan tahay, waxaasi sameynayaan dadkeeda, daas waay oo wadanku u wada xun yahay, oo qof kastana uu u fikirayo inuu isaga madaxdi noqdo oonan meel kale rabin, madax ma ahe wax kale uusan rabin. marka insha allah waxyaalo badanna insha allah waa soo gelin doonaa. inta hadda July koodeeda wixii aan usoo diyaariyay intaas ahayd. I hope inaa oo benefit ka hesheen insha allah. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها ilaawin inaa subscribe garaysid and like inaa saartid aan u share garaysid saaxiibahaaga, qof kasto isleedahay wuxuu ka faa'iidaya insha allah. comment-kiinana meesha noo dhiga si oo wixii ka faa'iideen ama waxaan ku qaldanahay saa oo noogu saxdeen insha allah, because no one is perfect. waxaan taraagareynay inaa oo maxaa la dhihi jiray wax macno leh oo Soomaalida wax ka faa'iidaan inaa soo gelino insha allah. wixii qalad ahna waxaan nahay bini aadan, waa qaldami karnaa insha allah. Waking up, I can smell the shop brewing, so you know I'm heading straight to the kitchen. I know hell, don't forget the kharf, the taste on my tongue, it reminds me of the halwa. The best feeling I had ever known, 10 siblings gathered in a single home. There ain't nobody hold it down like Hoyo. You never made it seem like it was difficult, always had a smile on your face. The trails of your tears, you ain't never left a trace. Those bitter situations you didn't want us to taste. So growing up was sweet like the sun in Somalia. Lately I've been restless, missing you, but I can't even go back home. I've been getting on me, rocking at my waistness. Walk up in the street is what I miss the most. We gotta come together like buddies and most. Why we gotta fight? Cause really we just one tribe. Now let's just unite like our families at dinner time. Let's cherish all our elders and listen to the stories. Take care of all our youngers and showing that we all one. Somalia, where we come from. Somalia, where we come from. Somalia, where we come from.